السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا جنال كينا بشار أكشن فضلا سبسكرايب نوصار قنباليلكنا فروسي كوسو قاران وحباين نسوق لنا ميشان waxaan idiin wadaa maanta qaybtii labaad ee sheekadii Shirqool iyo Shalaytan ninkii baabuurkii watay amran xaaji soo dul istaagay wuxuu noqday kadiya Umar Ogle waa nin caan ah oo beledkoo dhan laga garanayo qofkii aan isaga aqoon marka la yiraahdo waa in Umar Ogle horay buu ka aqoonsanayaa kadiya waa nin dumar wad badan oo shabeel laagood ah ugaarsiga hablaha hadda soo kacayana aad ugu falan aabiis Umar Ogle dhowr iyo 10 sano ee uu dalka Finland joogay 4 jeer buu isku dayay sidii uu wiilkiisa u dhoofsan lahaa kadib markii ay dhibeen dacwadaha uga imaanaya tolkiisa sida uu qalbigiisu u madow yahay in nasiibkiisu u madow yahayna waxa ku cadeynaya 4 leen oo dibadda loogu dhoofin lahaa afartiiba way ka gubteen khasaaro intaas kumaysan ay keen nasiib darridiisii 2 jeer oo uu tahriib isku dayayna uu ku fashilmay labadaas khasaaro oo mid dambe ay khayr u ahayd oo la isku daray waxay u sahleen in aabihiis uu ka helo kolkoolin iyo daryeel dheeri ah si loo qanciyo si uu wadanka u joogo oo uusan tahriib dambe ugu dhiiran ayaa loo iibiyay baabuur qaali ah sidoo kalena loo bilaabay lacag biil ah oo joogto ah ciidaasna ka badan baabuurkaas uu haysto iyo lacagtuba waa waxan qooqa iyo tumashada ugu wacan waqtigiisoo dhan 2 shanqo ayuu ku gubaa maruu ka fakarayo sidoo gabar u soo shirqooli lahaa iyo maruu ka fakarayo sidoo uga dangaari lahaa miduu soo shirqoolay wuxuu aaminsan yahay inuu gabar walba khaldi karo waayo wuxuu aad ugu kalsoon yahay afmishaarnimadiisa marka hore gabdhaha wuxuu ku tijaabiyaa afgubaadsi iyo hadal macaan gabdhahan qaarkood way ku fahmaan oo intay duqa ka buldeh filimkaas ayba ka cunay dhahaan bayil gooni ah isaga ilaaliyaan kuwa kalena amaanta iyo beenta uu ku harqinayo bay run moodaan oo dhadhansadaan isagoo ay khibradiisu caawinayso buu dabinka sii ballaariyaa si ugaar badan ugu soo dhacdo gabdho badan ayuu dagay oo markii uu dantii uu ka lahaa ka gaarayna intuu wejigii ay yaqaaneen iska fiiqay weji cusub la soo baxay weji cusub ma ahane waa wejigiisii dhabta ahaa gabdhaha kale ee beentiisa fahmay kuna gacan seeray sidaas uga muuharo haddii afkiisu wax tari waayo jeebkiisa ayuu isku kabaa af iyo jeebba uu ku diriraa marka xaaladaha noocan ay soo food saaraan inkastoo kadiya Umar uu caan ku yahay howlaha tumashada la xiriira iyo meelaha aroosyada laga ciyaaro haddana 2 xilli oo kaliya ayuu Ilaahay xasuustaa marka uu Roma higaan adaayo markaan wuxuu aad uga baqaa isagoo xumaan ku jiro inay biriq ku soo dhacdo oo intuu dhulka la dumo uu sidii qaaruun ilaa qiyaamaha dhulka sii socdo mar kalena waa marka uu xanuunsado markaan wuxuu sidoo kale ka baqaa inuu dhinto isagoo faraaq kula jiro shaqo naarta geen karta caawa isagoo aysan ka qasneen oo xaflad qobka ciyaar ah joogo muusigu samada marayo hadba gabar jalaqsan iska laalaadinaya miduu ka heli waayana mid kale saaxiibkid ku dhiban ka raasanayo buu madax xanuun dareemay xoogaa ayuu isxajiyay oo adkays iska baaray hase ahaatee xanuunkii ayaa ku sii siyaaday bannaanku u soo baxay neef culus buu jiitay mid culus oo dhidiisa batayna way ka soo baxday cirko madoobaaday iyo onkod baa ka hor yimid cabsidii xanuunka mid kale ku biirtay labadii uu ka cabsan jiray oo iskaashanaya sababay in qalbigiisu ruuxmo baabuurkiisii dhankuu ka jiray buu u soo orday si uu guriga u gaaro oo intuusan dhiban u tukado una toobad keeno intuu jidka ku soo jiray waa isagii la kulmay amran xaaji oo meel taala in door ah ay maskaxdiisa ku hordamayeen weydiimo iyo jawaabo kala jeeda wuxuu isku qabtay inuu badbaadiyo iyo inuu meesha uga tago mid dambe damiirkiisu uu siin waayay wuxuu falankeeda galay sidoo u badbaadin lahaa gabadha ehelkeeda inuu waco baa la qurux badnaatay nin wadada marayay buu intuu caawimaad weydiistay gaariga soo saaray borso ka dhacday buu telefonkeedii ka soo saaray 4 missed call oo shashada u saaran buu furay kii ugu horeeyay oo abi macaan ku qorneed buu wacay oday cod waaweyn oo xabeeb leh baa ka qabtay naahoy gurigiina ma timaadid hadday ku roon tahay buu mobilka ka dhex yiri kadiya fahmay in odaygu gabadhiisii u malaynayo laakiin wuxuu odayga u sheegay inay gabadhiisu meel cidla ah ku suuxday wuxuu u sharaxay sidii wax u dhaceen laakiin aabaheed uma uusan muuqan qof arrinta gabadhiisa niyad u haya oo ka damqanaya intuu meel u tilmaamay oo uu yiri adeer halkaas igu keen buu mobilka ku damiyay kadiya markaas yaab uguma horeyn waxaa la yaab ku noqotay aabe sidaas gabadhiisa ula hadlaya haddii uu ogaan lahaa sida eedadeed ula hadasho yaabkiisaas caano iyo malab buu noqon lahaa waqti ma uu haysto intuu baabuurkii reefis geliyay oo steerinkii dhinac wada leexiyay markuu laamiga ku beegayna intuu kiilo qiiq ah oo iskaalmintada ka fasaxayna hawada rooban ku sii daayay laamiga iyo taayaradana isliis ka dhaliyay
buu hal mar sidii jiir shabaq uu ku xabisnaa ka soo booday taayaradii cagaha wax ka dayeen. cabsida ugu weyn ee uu qabo ayaa waxay tahay in gabadhu ku soo kacdo ka hor intuusan gurigeeda geynin. wuxuu hadba luuq biyo fadhiyaan dhex jiro waddo weyn ka bayro mid ciriiri ah isku dirqiyo. markii dambe isagoo wax yar u jira meeshii odayga u tilmaamay ayay Amran soo kacday. waxay uu filayay baa dhacay. hal mar ah bay qaylo afka ku shubatay inkastoo ay daaqaduhu xirnaayeen. intuu baabuurkii istaajiyey ayuu isku dayay inuu wax fahamsiiyo, wuuse ku guulaystay. cabsida iyo shakiga haya Amran ayaa hadal u diiday inay tiraahdo. aaminaad aan cago fiican ku taagnaynna way aamintay. yaa u wariyey miskiintan ninkan taariikhdiisa, iska daa mid aan aqoone, gabar taqaana xitaa daqiiqad baabuur lama saarnaateen. allaheed baa alle ah. kadiya maskaxdiisu way shaqaynaysaa. fakar ayaa la tegay. wuxuu samayn lahaa iyo gabadha wuxuu ku oran lahaa buu isweydiinayaa. intuu howshaas ku mashquulsanaa ayuu ku baraarugay cod dhagihiisa ku soo dhacay, balse uu jeclaystay inuu been noqdo. walaal, halkan weeye gurigeenna, filladaas soo jeedo weeye. baabuurka istaaji. Amran oo cabsi badan dareemaysaa sidaas kadiye ku tiri. dhowr jeer ayuu yaah ku celceliyey, iyana hadalkeedii hore ugu soo celcelinaysaa. albaabkii baabuurka ayuu ka furay. hortiisay martay. korontadii roobka bilowgiisa tagtay weli ma aysan imaan. hase ahaatee waxaa shidan leerka baabuurka kadiye. indhihiisa aan ilaahay ka cabsanayn ee xumaanta u bartay waxay sii daawanayeen kuwabka iyo lugaha Amran. taasoo markii ay biyaha waddada waran ka tallaabsanaysay marada kor u yara xaydatay. aad buu uga xumaaday fursaddan uu beeldareeyey. intuu shukaanta baabuurka gacanta ku garaacay buu si niyad jab leh u yidhi shid, baabuurkiina dhaqaajiyey. haddaba su-aashu waxay tahay kadiye oo aan ognahay inuu yahay nin aan caadi ahayn, maskaxdiisana uga faa'iidaysta dabinaqoolidda hablaha naftiisu jeclaysato, inkastoo mararka qaar uu qalbi wanaagsan yahay. muxuu samayn doonaa? ma ka samri doonaa? Amran maxay iyana fali doontaa? fadlan la soco qaybta 3 oo ah qayb aad u xiiso badan. muuqaalkan haddaa ka heshayna like saar, naguna soo biir oo subscribe saar. aad ayaad u mahadsan tahay.